gabadhii uu la hadlay yaa amata aljabbaar ayuu yidhi yaa amata aljabbaar allah jabbaara addoontiisay ji'ta min almasjid masjidkaad ka timid uu yidhi qaalat nacam masjidka ka imidid walahu tadayabti masjidkaad isku soo diibida qaalat nacam oo masjidkaad soo carfida uu yidhi asii tiri haa kolkaabuu hadle wuxuu yidhi innii samictu xibbii abalqaasim sala allahu calayhi wasalam yaquul laa tuqbalu salaatun limra'atin tadayabat lihada almasjid masha allah anigu waxaan maqlay anigoo abu hurayra xibbii macnaa maxbuubi a laga wadaa kayga la jecelya oo ah nabi moxamed abulqaasim kunyana nabigaa la dhihi jira isagoo odhanaya gabar salaad looma aqbalayo isu diibiday masjidkan oo kana ilaa ay ka laabato oy ka soo qubaysato qubayskii janaabada oo kale laa ilaaha illa anta ceebta ugu dar waxay soo samayda ilaa inta laabato ay soo qubaysato qubayskii janaabada oo kale maasha allah dhibaatada bal fiiriya waa abu hurayra waa saxaabi jaliila maasha allah haya walaal inay soo qubaysato qubayskii janaabada oo kale ayaa korkeeda qasab ku ah gabadha baxday arwaa ceeb waa gabadha ku baxday carafta war carafa ku bixinina xabal la shitay aha wax la isku buufiye aha wax la ismariye aha rabbiga inay khalqay ka cabsada qaawanaana ku bixinina carafa la bixinina kala reesmarinina jilcisaha marsanina madoobaysaha marsanina balaayo iyo baasa marsanina hoogaa jira diintii waa laga sii socdaa balaayo ismariyeen way iscadeeyeen nin baa hadda koor waxaa laygu yiri gabarow guursaday raalli ahaada bal maanta wayna daayeen adinkaa igu wactayna raalli ahaada armay maqlaydi nin baa hadda koor gabar madow guursadaa layidhi gabar madow gabadhii madoobeed waxay istiri ninka bal isu qurxi asay iscadayda waa la hoogay meel ayraboor aa lagu kulmay aa lagu ballamay waxay iska soo dhigtay roobla dhac firinfiray iska soo dhigtay way soo cadayda sodohdiina gabadhay gelbi maagto ayadiina waxay istiri bal sadoguna ha ku jeclaadee wiilkaadana aad u caddaatidi bal adna ismari sodohdiina way si soo marin kaba daran eerboorkaa lagu kulmay ninkii gabadhan yartaa guursaday madowga anaa kugu rabo kugu ogaya xaa isla caddaydo waa u dalaaqay meeshuu ku dalaaqay sodogiina sheegtii u dalaaqay ilaahu nimankaasoo jannada idin gey araamidhaha ilaahu nimankaasoo jannada idin gey waa nimankaan dumarka u talino mar haddii baadil lagugu taliyo oo baadil lagugu hogaamiyo waa ku dhammaata maasha allah ya maasha allah maasha allah waa u dalaaqay waa gabadha hadda la aroosi rabay oo qarashaadka lagu bixiyey halkaa amaray jabiday ayaa 10 aroos ka daran maasha allah waa u dalaaqay waa ku mahadsanaaye odagii sodoga ahaana duqdiyo oo dalaaqay waa ku mahadsanaaye caddaantan bal meeshii la aadayaan ayuu laga rabaa nimankii laysu soo qorxiyey waxbay fureen bal meeshii lala aadayaa laga rabaa eber khasaara way maasha allah rabbiga inay khalqay ka cabsada qaawanaan ha la bixinina caraf ha la bixinina kala reesmarinina ha iscadaynina ilkiina ha feefeerinina balaayo kale ha ismarinina timaa ku darsanina madoobaysaha marsanina daawada cilaanka la yidhaha nuuraani waa madoobaysoo kale rabbiga inay khalqay ka cabsada rag iyo dumar nabiga u diiday sala allahu alayh wasalam rabbiga inay khalqay ka cabsada diinkan asaga oo la casriyeynayo casriyeenta ka daaya diinku ma duugaabin diinku waa sidiisii nusuusu way nagu filan tahay rabbi ka cabsada hawa uma baahnin shaydaan uma baahnin gaalo uma baahnin hidiya dhaqanka reerbeeleedka uma baahnin rabbiga inay khalqay ka cabsada rabbiga inay khalqay ka cabsada rabbiga inay khalqay ka cabsada iscarfinta ajidadka la maraysin joojiya waxaad soo marmarinaysan joojiya kuwa la aroosayo la marinayo iyo kuwa kale iska marsanaya waxa lagu leeyahay markay ismariyaan waxaan la isku cadeeyo way gubanaysaa waana uraysaa inta cadaabkii la gaarina cadaab muqaddama la sii cadaaba waa cadaab hormarisa fiirida inay soo urta waa cadaab inaysan joogi karin gubanaysa waa cadaab way isku wadaysaa haddii kala dhibaato inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hidaaya allah siiyo waxaan ismarina allah ka badbaadiyo maasha allah tan kale waxa idin kaga digaya
musaafaxada lees musaafaxaynayo aad iyo maqal gabadha ajnabiyada iyo ninka ajnabiga marna ma ismusaafaxaynaya mara iyo marala'aan Soomaalida aad u yaqaanin aboowe ina adeerayaanta waaba kala daahnay marada iska xije dhimbil dhuxul naara mara ma celida war dhuxul daba mara ma celida gabadhu waa naar ninkuna waa naar marana naar ma celido rasuulka sallallahu alayhi wasallam rijaasha markuu mubaayacada diinad la mubaayacoonayo afkana waa kala mubaayacoo jira gacantana waa gacan qaadi jira dumarkana afka bisoo kala hadli jira waliba gabdhaha gabala nabiga weydiistay in oo musaafaxeeyo maxaana nabigu yiri inni la usaafihu nisaa anagu dumarka ma gacan qaadabo salawaatullaahi wasalaamu alayhi adeerka hadoo dhalay abtiga hadoo dhalay mid kale haday tahay ha gacan qaadin gabar ajnabiyada gacan ka hadalka hala joojiyo salaamta islaamka afka waa laga wada hadli karaa hadii aan fidna ka iimaanayn yaashaasna fidna hadii laga aamin yahay afka laga wada hadlo laakiin gacanta mara iyo marala'aan maya rabbika cabsada jalla wa ala tan kale hal iska jiro loo gelida loo gelayo dumarka keligood ah rasuulku maxaa yiri sallallahu alayhi wasallam iyaakum wad-dukhul ala an-nisaa faqala rajul ya rasul allah afara'ayta al-hamwa qala al-hamu al-maut hadi maqlabad waan idin digayaa ee iska jira dumarka loo gelida loo gelayo waa dumarka ajnabiyaadka nin baa wuxuu rasuulka allah ka waran ninka la yiraahdo dumaashiga qariib zawj arinta ka waran rasuulku wuxuu yiri kaasi waa maut waa geeriyo kala kaas laba gambar oo gaagaaban inta soo agdhigaan ilmaha adeerkood waa ninka la dhashay ama ina abtigiis ama ina eedadiis waha kada ama soojada nafteeda kuwa ilma adeerka iyo laahay laba gambar la soo agdhiganaya ilmihiina dugsiga ku maqan yihiin waran balayaanta isma arag eber tala ka dhacdo bal waran khalwada ka jirta meesha fiirsi dambiga meesha ka jira fiiri ilmaha adeerkooda iska wada iyadana dumaashi fiican iska wada asad dumaashi fiican iska wada inna lillahi wa inna ilayhi ku tumanaya waa baadil waxba kama jira rabbigana khalqayaan ka cabsan ahadka la soo dhaweysanayo la iska jirin waaba geeriyo kale nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam dadka kale waxaaba laga yaabaa in xoogaa la iska yara jiro laakiin kuwaan soojada u sii dhow ama zawjka u sii dhow oo la iska jirin waaba geeriyo kale nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam sida loogu fidnoobayo oo dib u iman karo ma sha Allah waxa kale laga yaabaa rijaal ba safar iyo meelaha ku maqan qaraabo iska wada asunta yimaado gabadhi u soo galaya rasuulku maxawleeya sallallahu alayhi wasallam la taliju ala al-mughibat fa inna ash-shaytana yajri min ahadikum majra dam ha u gelinina gabdhaha laga cilay laga maqan yahay rijaashoori ay ka maqan yihiin maxaa yeelay shaydaanku ahadkiin waxa uga soconayaa majra dam meesha dhiigku qofka uga socdo waa halis tan kale hal la joojiyo khalwada gooni noqoshada la isla gooni noqonayo ama atomida taqaan ama atomida noqon la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhum ash-shaytan maqla warka ni yow la khaalin noqon la gooni noqon gabar illa awlal khaalin noqdo shaydana saddex ku ah Allahu akbar حديث كلا واحد كيري يوصلني قبر لا خالي نقول أجنبية إلا مد محرم صحيح معي سماش الله نفهم في أمينه الله أكبر ورا لا يسكجرو ورا عندك تونان في جاشة حبله هودي يا قبله هودي يا ولا له هودي نمنك إسلامي الله أصابيا لا خالي نقول يا هذا ربانك أنت كغفصنا يا أو إسك غسل يانو أين دينكم أين إيمانكم ربي جينا إن خلقك عبسا إلهي واغيرو ذا مؤمنكم واغيرو ذا إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله الله أكبر الله نمسي ولا أمينها الله هذا كار سحابي الذي يجرى سعد النبي وحو كيري رسولك الله هدان حاس كيغا نن أمادو وأنا الإسلامي سيفتيد أفكير كما دورينو
rasuulku waxa uu yidhi ma la yaaban